بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد waxaan ku guda jirnay buugga maadada sayniska fasalka saddexaad ee dugsiga hoose. Xiisadeena u dambeysay waxa aan kusoo sharaxnay cutubka afaraad oo aan kusoo baranay biyaha. Xiisadeena maanta waxaan ku sharxaynaa cutubka shanaad oo aan ku baran doono cuntada. Cutubka shanaad waxaan ku sharaxi doonaa cuntada noocyadeeda kala duwan. Fasalka labaad waxaan kusoo baranay number 1 ilaha cuntada laga helo ayaan kusoo baranay. number 2 cuntooyinka la calaaliyo iyo kuwa la cabo ayaan kusoo baranay. number 3 cuntooyinka la kariyo kuwa aan la karin ayaan kusoo baranay. number 4 waxtarka cuntada. Ilaha cuntada waxaa ka mid ah ayaan dhahnay dhirta iyo xayawaanada ayaan dhahnay. Cuntooyinka la calaaliyo waxaa ka mid ah ayaan dhahnay bariiska, baastada, muufada, canjeerada, kuwaasi waa la calaaliyaa. Kuwa la caban waxaa ka mid ah ayaan dhahnay cabitaanada noocyadooda kala duwan iyo caanaha ayaan soo sheegnay. Cuntooyinka la kariyo waxaa ka mid ah ayaan dhahnay bariiska, baastada ayaa ka mid ah. Kuwa aan la karinin waxaa ka mid ahaayeen tufaaxa, cambaha, qumbaha iyo wax loo yaqaano raqayga. Waxaa kaloo ka mid ah kuwa aan la karinin waxaa kaloo ka mid ahaay ansalaatada. Waxtarka cuntada jirka ayay korineysay, tamar ayaan ka helaynay, cudurrada noocyada kala duwan ayay naga difaaceysay. Fasalka saddexaad waxaan ku baran doonaa noocyada cuntada ayaan ku baran doonaa, ilaalinta nadaafadda cuntada ayaan ku baran doonaa. Casharka oo koowaad noocyada cuntada. Waxqabadka koowaad waxa aan magacaabayaa noocyada cuntooyinka kala gedisan ee jirkeena ku caawiya siyaabo kala duwan. Mooska ayaa ka mid ah, karootada ayaa ka mid ah, yaanyada ayaa ka mid ah, tufaaxa ayaa ka mid ah, barbarooniga ayaa ka mid ah, basasha ayaa ka mid ah, bataatiga ayaa ka mid ah. Waxaan ugu baahanahay cuntooyinkan in aan mid walba wax ka helno. Balanced diet ayaana loo yaqaanaa cunto isku dheelitiran. Balanced diet cunto isku dheelitiran. Cunto kasta waxaa ku jira walxo muhiim ah oo jirkeenu u baahan yahay si uu koritaan iyo caafimaad u helo. Cuntooyinka qaar waxaa ku badan tamarta ayaa ku badan, qaar waxaa ku badan borotiinka ayaa ku badan, qaar waxaa ku badan mineralska ayaa ku badan, qaar waxaa ku badan duxda walxahaasi kala duwan waxaa loo yaqaanaa nafaqooyin. Cunto nafaqo leh markii aan dhahayno waa markii cuntooyinka oo dhan cuntada markii ay ka kooban tahay ayaa waxaa leenahay cunto nafaqeysan ama cunto isku dheelitiran. Cuntada markii ay isku dheelitiran tahay marka waxaa loo yaqaanaa nafaqooyin ayaa loo yaqaanaa. Waa markii cuntada kala duwan oo qayb yar aad ka qaadatid oo haddana
frequency aad ku laawatid waa waxoogaa saacado kala duwan oo u dhexeeya. Laakiin hal cunto wax badan aad ka cuntid waxaa kaaga wanaagsan marka cunto yar oo laakiin dhowr cunto ka kooban inaad cuntid ayaa kaaga wanaagsan caafimaad ahaan iyo jir ahaanba. Waxqabadka labaad waxa aan sheegayaa cuntooyinka kala duwan ee aan cunno maalin walba. Kuwa ku jira sawirada hoose waxaa ka mid ah kuwa mooska ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah karootada ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah basasha ayaa ka mid ah, bataatiga ayaa ka mid ah, yaanyada ayaa ka mid ah. Kuwaas maalin walba ayaan cunaa. Waxtarka cuntada waxtarkeeda. Cuntada waxaa loo kala qaybin karaa saddex qaybood iyada oo lagu saleynayo ama loo fiirinayo shaqada cunto kasta ay qabato. Number 1 cuntooyinka jirka siiya tamarta. Tusaale marka aad shaqeynaysid waxaan ku hadlayo tamar waa tamarna waxaa loo yaqaanaa awoodda shaqo ama hawl lagu qabanayo waxaa loo yaqaanaa tamar loo yaqaanaa. Waxqabadka saddexaad waxa aan sheegayaa cuntooyinka kala duwan ee jirkeena siiya tamar. Cuntooyinka qaar waxaa ku jira nafaqooyin aan ka helno tamarta aan wax ku qabsano iyo mid aan ku ciyaarno. Cuntooyinkaas waxaa loo yaqaanaa cuntooyinka bixiya tamarta. Cuntooyinka jirka siiya tamarta waxaa ka mid ah soorta, muufada, bariiska, baastada, bataatiga iyo canjeerada ayaa ka mid ah. Cuntooyin kalena waa jiraan. Halkan waxaa nooga yaal waxqabadka afraad. Waxa aan sheegayaa nooca cuntada ay u baahan yihiin dadkan oo sawirka hoose ka muuqda. Labadan qofood baabuur ayay wax kasoo dejinayaan, qofkana beer ayay falayaan ama beertii ha abuuro ama ha falo yaanbo ayuu wataa. Dadkan waxay u baahan yihiin cuntooyinka tamarta jirkooda siinaysa ayay u baahan yihiin si ay ugu shaqeeyaan. Number 2 cuntada jirka korisa. Jirka koris aan dhahayn qofkii physical ahaan ay u koriso murqo waaweyn oo yeesho si qofkii wax uu qabsado awood leh noqdo. Waxqabadka shanaad waxa aan magacaabayaa cuntooyinka kala duwan ee jirkeena koriya ee sawirka hoose ka muuqda. Waxaa ka mid ah hilibka ayaa ka mid ah, ukunta ayaa ka mid ah, hilibka malaayga ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah caanaha ayaa ka mid ah, waxaa kaloo ka mid ah digirta ayaa ka mid ah. Kuwaasna cuntooyinka jirka koriya ayay ka mid yihiin. Cuntooyinka jirka dhisa ama jirka koriya waxa ay naga caawiyaan sidii jirkeenu u kori lahaa sida ka muuqato sawirka hoose. Arday caata ah waa arday buuran waxay ku kala duwan cuntooyinka ay cuneen ayay ku kala duwan yihiin. Cuntooyinka jirka dhisa sidoo kale waxa ay hagaajiyaan oo ay bedelaan qaybaha jirkeena waxyeelloobay sida hilibka. Wuxuu wax ka bedelaa meelaha tusaale jirkaaga oo dhaawac ka soo gaaray meelahaas soo buuxinaya. Ukunta ayaa ka mid ah, digirta ayaa ka mid ah, caanaha ayaa ka mid ah, subagga iyo wixii la mid ah. Waa inaad xal u heli kartaa loo baahan yahay cuntooyinka kale.
ayaa ka mid ah, sida waxaa waaye malayga ayaa ka mid ah. Waxaan kaloo ka heli karnaa waxqabadka lixaad. Waxa aan sheegayaa cuntooyinka aan maalin walba cunno kuwa jirka koriya. Kuwa jirkeena koriya maalin walba cunno waxaa ka mid ah digirta ayaa ka mid ah, caanaha ayaa ka mid ah, ukunta ayaa ka mid ah, hilibka ayaa ka mid ah. Hilibka maalin walba ayaan cunnaa. Hilibka maalin walba ayaan cunnaa. Cuntooyin kale way jiri karaan oo jirka korinayo, wixii borotiin laga helayo oo jirka korinayana way jiraan. Cuntada jirka ka ilaalisa cudurrada. Cuntooyinka jirka ka ilaalisa cudurrada. Cuntooyinka jirka ka ilaalisa cudurrada waxaan dhihi karnaa ayagana waxaa waaye cuntooyinkan oo qudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa ka mid ah. Qudaarta noocyadeeda kala duwan ayaa ka mid ah. Qudaarta noocyadeeda kala duwan waxaa kaloo dhihi karnaa cuntooyinka dufanka leh, sida waxaa waaye hilibka oo qaybta baruurta ah waa ka mid ah, waxaa waaye cudurrada ku ilaaliyaan. Sidoo kale waxaa ka mid ah baruurta waxaa kaloo faa'iido u leedahay jirka, inay ka ilaaliso qabowga jirka. Waxqabadka toddobaad. Waxaan magacaabayaa cuntooyinka kala duwan ee jirka ka ilaalisa cudurrada. Cuntooyinkan waxa ay jirkeena ka ilaaliyaan cudurrada. Miraha ayaa ka mid ah oo qudaarta. Miraha geedaha ayaa ka mid ah iyo qudaarta ayaa cuntada wax ka ilaalisa. Miraha iyo qudaarta ayaa ah cuntada wax ilaalisa, fitamiino ayaa ka buuxa. Fitamiinadaasi waxay la dagaalamayaan cudurrada ay la dagaalamayaan. Mooska ayaa ka mid ah miraha. Cambaha ayaa ka mid ah, liinta ayaa ka mid ah, tufaaxa ayaa ka mid ah, saytuunka ayaa ka mid ah, yaanyada ayaa ka mid ah, karootada ayaa ka mid ah. Bagalka waxaa waaye waa qudaarta samaan. Batiiga ayaa ka mid ah miraha iyo wixii la mid ah. Waa inaan xal u heli karnaa waxaan xal u heli karnaa waxaa ka mid ah babaayga ayaa ka mid ah, oo afagaadhaha ayaa ka mid ah. Waxqabadka sideedaad. Waxaa kale oo aan magacaabayaa miro qudaar kale oo aan la soo sheegin. Wixii hadda aan sheegin waa babaayga lama sheegin. Babaayga ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah qaraha ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah qumbaha ayaa ka mid ah. Lama soo koobi karo. Afagaadhaha ayaa ka mid ah. Waxqabadka sagaalaad. Waxaan sheegayaa cuntooyinka aan maalin walba cunno kuwa jirka ka ilaaliya cudurrada. Cuntada maalin walba aan cunno waxaa ka mid ah yaanyada ayaa ka mid ah, maalin walba ayaan cunnaa. Waxaa ka mid ah bagalka ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah liin dhanaanta ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah mooska ayaa ka mid ah, maalin walba ayaan cunnaa. Kuwa kale waxaa waaye inaad weyso ayaa laga yaabaa marmar qaar. Karootada ayaa ka mid ah. Waxqabadka tobnaad. Waxa aan ku horqorayaa cunto walba qaybta ay tahay. Waxqabadkan waaye digirta. Digirta waxaan ka helnaa cuntada tamarta laga helo cuntada jirka koriso. Tufaaxa cuntada jirka ka ilaalisa.
cudurada waa hilibka cuntada jirka koriya ayuu ka mid yahay. Baastada cuntada waxaa waaye laga helo tamarta ayay ka mid tahay. Ansalaatada waxaa ka mid ah marka cuntada jirka ilaalisa cudurada. Waxaa halkan ka aragna iyadana baasta dhaadheer. Si fiican ma loo arkayo cuntada waxaa waaye iyadana laga helo tamarta waaye marka. Cuntooyinkan oo dhan marka tamarna waa laga helaa, qaarna waxaa waaye fitamiin waa laga helaa, borotiin waa laga helaa, qaar intaas iskugu kooban ayaa jirto. Marka waxaa waaye cuntooyinka marka fastly waa marka sida ay u kala horeeyaan cunto walba. Tusaale baastada waa fastly waxaa ku badan marka cuntooyinka tamarta laga helayo ayaa ku badan, energy-ga ayaa ku badan baastada. Hilibka waxaa ku badan borotiinka ayaa ku badan, laakiin tamarna waan ka helnaa. Tamarta aan ka helayna ayaa yar marka. Karootada waan ka helaynaa. Cuntooyinkan dhan tamar waa laga wada helayaa oo nafaqooyinku waa laga helayaa kala duwan, laakiin waxaa waaye waa ku kala yaryihiin marka waa lagu kala badan yahay. Marka hilibka waxaa ku badan borotiin ayaa ku badan iyo dufanka. Baastada waxaa ku badan energy ayaa ku badan. Karootada waxaa mineralska begerka mineralska ayaa ku badan. Tufaaxa mineralska ayaa ku badan. Digirta waxaa waaye balance diet waaye. Wax walba waa laga helayaa si isku mid ah. Baastada sidoo kale waxaa ku badan marka tamarta ayaa ku badan. Cunto kasta oo aad rabtid in aad cunto waxaa muhiim ah in ay ku jiraan 3 qaybood: cunto aan ka helno tamar, cunto jirka dhista, cunto ka ilaalisa cudurada jirka. Nadaafadda cuntada marka. Casharka 2 ilaalinta nadaafadda cuntada. Cuntada inta aan la cunin horta gacanta inaad dhaqdaa. Kadib cuntadii haddii ay cunto oo ceeriin ay tahay la dhaqdid. Karkaris cuntada la karinayo haddii ay tahayna karisid si fiican u karisid dab oo xoog badan ku karisid. Waxaan sheegayaa marka siyaabaha kala duwan ee loo ilaaliyo nadaafadda cuntada. Cuntada jeermis ayaa dul saaran, marka waxaa loo baahan yahay marka si wanaagsan in loo dhaqo. Cuntada marka maxaa waaye si wanaagsan in loo dhaqo. Qaarna waxaa waaye waa in xoogaa yar biyo oo kulul lagu dhaqo si jeermiska loogu dilo. Qaarna maxaa waaye kuwa la karinayo maxaa waaye inta aan la karin la dhaqo kadibna si wanaagsan iyadana loo kariyo. Jeermiska ayaa keena cudurada kala duwan. Jeermisna waxaa waaye waa noolayaal oo ilma aragta ah waa marka. Jeermis marka aan dhahayn marka maxaa waaye jeermis waxaa loo yaqaanaa marka waa noolayaal oo ilma aragta ah waa jeermis waxaa loo yaqaanaa marka noolayaal oo ilma aragta ah ilaa iyo 5 waa marka hal haba ayaa cudur dhalin, inta kale maxaa waaye cudur ayay dhaliyaan. 5tan waxaa ka mid ah oo algae, fungi, virus iyo bacteria iyo protozoa. Marka algae marka cudur ma dhaliyo, noolayaasha ilma aragtada ayuu ka mid yahay. Inta kale marka cudur ayay dhaliyaan. Intaas kale marka cudurka dhaliya qaar marka waxaa waaye oo laga faa'iideysanayo ayaa jirta, waxyaabo kale loo adeegsanayo oo faa'iido leh ayaa jiraan marka. Jeermiska sidee buu ku soo galaa jirkeena? Jeermiska jirkeena wuxuu ku soo galaa marka in cunto wasakhaysan aan cunno ayaa jirkeena ku soo gali karaa. In waxaa gacmaheen wasakhaysan ayuu jirkeena ku soo gali karaa. Jeermisku waxa uu jirkeena ku soo gali karaa marka isaga oo la socda cuntada aan la nadiifin ama aan nadiifka ahayn ama gacmaheena aan nadiifka ahayn ayuu soo raaci karaa. Ogow, nadiifinta xooggan waxa ay dishaa jeermiska ayay dishaa. Nadiifinta gacmahaaga inta aadan cuntada taaban. Marka waxaa loo baahan yahay intaad cuntada aan taaban gacmahaaga si wanaagsan aad u dhaqdid. Ilkahaaga si wanaagsan aad u cadayso ama waa inaad cadaysataa markii aad soo kacdid.
habeenkii marka aad seexanaysid ilkaha cadayso. Markasta dhaq gacmahaaga inta aadan taabanin cuntada. Xasuuso in aad cidiyaha farahaaga jartid. Macnaa cidiyaha haddii ay dheer yihiin ayagana waxaa ku hoos galaya marka jeermiskii waa uskag ayaa meesha ka dhalanayo. Jeermisa marka meesha ku noolaanayo marka kadibna waxaa waaye saas marka cudur dhalanayo marka gacmaha ayagana in waxaa waaye cidiyaha laga jaro si markaa oo meesha jeermis aan ugu dhalan. Jeermisna wuxuu jecel yahay meelaha uskagga ah, meelaha yacni oo wasaqda leh ayuu jecel yahay. Nadiifinta cuntada ceyriinka ah. Cuntada ceyriinka ah in la dhaqo dan kadib si wanaagsan loo kariyo. Wixii cunto ceyriin ah inta aan la karinin waa in la nadiifiyaa. Had iyo jeer isticmaal biyo nadiif ah marka aad nadiifinaysid cuntada ceyriinka ah. Marka aad nadiifinaysid cuntada ceyriinka ah, biyo nadiif ah adeegso. Nadiifi miraha oo dhan inta aadan fiiqin. Nadiifi khudaarta oo dhan inta aadan jarjarin. Nadiifi marka koowaad. Nambarka 3 nadiifi maacuunta cuntada. Si wanaagsan u nadiifi. Isticmaal biyaha ama biyo saabuun leh oo diiran isticmaal si aad ugu dhaqdo maacuunta oo dhan. Marka waxaa waaye inaad gacmahaaga aad nadiifisid, cidiyahaaga aad jaratid, ilkahaaga cadaysatid, maacuunta aad nadiifisid. Cuntada inta aanan la karinin waxaa waaye si fiican u nadiifisid. Cuntadana waxaa si fiican aad u karisid. Waxqabadka 12aad waxqabadka ugu dambeeya waaye. Waxaan magacaabayaa siyaabaha kala duwan ee looga hortagi karo jeermiska. Jeermiska waxaa looga hortagi karaa marka in gacmahaaga aad nadiifisid oo aad dhaqdid, ilkahaaga cadaysatid, khudaarta si wanaagsan loo dhaqo, inta aan la karinin, cuntada si wanaagsan loo kariyo. Marka waa intaasi oo dhan marka waxaa waaye maacuunta oo iyagana si wanaagsan loo dhaqo inta aan waxaa waaye khudaarta aan lagu shibin ama khudaarta lagu ridin. Biyo diiran iyo saabuun aad ku dhaqdid maacuunta. Marka waxaa jeermiska haddii marka si wanaagsan oo aan u adeegsan marka gacmaha aan iska dhaqno, ilkaha aan cadayno oo khudaarta aan dhaqno inta aan la fiiqin ama inta aan la cunin oo raashinka ceyriinka inta aan la karin si fiican loo dhaqo, si fiican loo kariyo, maacuunta si wanaagsan loo dhaqo oo biyo saabuun leh oo biyo diiran oo saabuun leh oo lagu dhaqo. Intaas marka waxaa looga hortagi karaa marka jeermiskii marka waxaa uu dhimanaya marka. Halkan ayaan ku keenayaa cutubkiina halkan ayaa nooga egyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.